بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا وناسن دعوة ومر كلا برنامجكي حساب بدنا idinku soo gudbin jirnay Ras Media. haddii aad tahay daawadana ugu cusub fadlan subscribe si rukumo gambaleelka si mar walba idin soo gaarano xubnaha muhiimka ah ee arrimaha bulshada had iyo goor aan idin soo gudbino. habsiinta lamaanaha oo la sheegay inay daawo u tahay welwelka iyo stresska faraha badan ee lamaanuhu uu hayo. waxaa haddaba marka laga hadlayo arrimaha jacaylka ee ku aadan lamaanayaasha isjecel jurbaba qalbigaaga uu ku soo sawirmaya jacayl baaxad weyn oo laba lamaane isku qabaan. khubaro ku xil dheer arrimaha lamaanaha jacaylka ayaa waxa ay sameeyeen daraasaad ay ku eegayaan sida xal waara loogu heli karo stresska faraha badan iyo welwelka soo wajaha lamaanayaasha nolosha iyo farxadda ka dhaxayso, taa oo lagu ogaaday in hab isasiintu lamaanuhu ay daawo u tahay. haddaba baaritaankan uu sameeyey bare macalinka ah jaamacadda lagu magacaabo North Carolina ayaa waxa uu sheegay in hab isasiinta lamaanaha sida dhabta isku jecel labaduba jirkooda uu soo daayo hormoon jirka kaas oo siiya farxad ballaaran oo lamaanayaashu welwelka stresska ay ku iloowayaan, waxaana hormoonkaasi loo yaqaanaa oxytocin. warbixinta oo dhinacyo badan eegaysa ayaa jacaylka iyo lamaanaha looga hadlayay ayaa waxaa lagu sheegay in sababta ugu weyn ee dadku isku jeclaadaan ay tahay inay samaystaan mustaqbal noloshooda kaas oo markii ugu dambayso uu noqonayo inay isguursadaan oo ubad ay kala helaan. waxaana inta badan daraasadani lagu sameeyey ku dhowaad 32 lamaane oo labalaba u socda. daraasadan ayaa waxa ay ku ogaadeen in wadnuhu uu garaactaan zaa'id ah uu sameeyo marka ay indhuhu isku dhacaan labada qofood ee xiriirka ka dhaxeeya ee isku hor yimaadaan. lamaanayaasha sida dhabta isku jecel ee sida xad dhaafka ah weeyaan wadnahooda waa uu garaacmaya muddo 3 daqiiqadood ah marka ay isdhaafsadaan erayo kalgacayl ay ku jirto. lamaanayaasha daraasadan lagu sameeyey qaybahooda kala duwan ayaan arrinkaasi lagu ogaaday, waana sababta dadka Soomaalida ay u adeegsadaan oraahda caanbaxday ee indho jacayl isma eegi karaan. taas shaki kuma jirto. waa hagaag waxa uu sheegay macalinka daraasadan sameeyey in marka aad qof jeclaato ama jacayl u qaado waxa ay ka dhigan tahay buu yiri adigoo bartay balwad cusub. waxa uu leeyahay David oo ah ninka sameeyey baaritaankan isagoo hadlayna yiri waxa aad doonaysaa qofka aad jeclaatay mar walba in aad aragto maqnaashihiisa waad ka walwalaysaa, waxaad u baahan tahay in codkiisa aad maqasho kamana maanabi kartid had iyo goorba. xarunta macadka lagu magacaabo Pew Research Center ayaa tirkoob uu sameeyey sanadii 2013 waxa uu ku ogaaday in dadka isguursada ay yihiin 23% lamaane horay nolol ugu dhaxaysay kadibna ay kala tageen. waxa ay warbixintu xustay in la isku soo noqdo oo dib la isku guursado lamaanaha kala tagay ay noqotay mid iska caadi ah 13% marka loo eego daraasadii la sameeyey sanadii 1960. haddaba isku soo wada duuba daawade daraasadan waxaa lagu xusay in dhunkashada iyo habsasiinta laf dhabar aad u xoogan ay u tahay wadajirka lamaanaha sida dhabta ah ee isku jecel. waa hagaag waxaana la sheegay in 28% dadka isguursada dhalinta caalamku aysan haysanin wax hanti ah balse iska xaqabtira oo kaliya inay isdhunkadaan oo hab ay isa siiyaan. waxa ayna taasi daaqada ka saartay in la isku guursado amaba guurku uu ku xirnaado hanti. waxa uu ku xiran yahay jacayl dhab ah oo lamaanuhu ay samaystaan. haddaba Ras Media ah xasan socdaal oo idin leh lamaanayaasha isjecelow hadda kuwa isdoondoonaya ma ah waa kuwa isqaba guryaha isla jooga dee hab isa siiya raxmadaha idin timaado. mararka qaarkood waxaa dhacda wiilkay gabadha guri isla jooga isqaba in sariirta qofka kale dhinac u fikiro dhinacaan qofku u jeesto welwel stress ayuu dareemaya. marka hab isa siiya stresskii welwelka ha baaboo habta ha la badiyo. haddii aad nagu cusub tahay channelkeena mar kale waxaan kaa codsanaynaa subscribe share iyo like commentiga haddii aad noo raacisana waa dhiirigelinteena. waa Ras Media iyo socdaal idin leh. bye bye.